Dowladda Israa'iil iyo dowladda Mareykanka ayaa qaatiyan kala taagan kadib markii dowladda Mareykanka soo jeedin ay u sameysay dowladda Israa'iil ay ku sheegtay in Israa'iil aysan weerar argosya ku qaadi karin Tehran xilli Israa'iil ay sheegtay in ay ka argudanayso weerarkii habeenkii Sabtida ahaa lagu qaaday Tel Aviv kaasi oo dhowr gantaalo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn noocooda isqarxiya lagu weeraray Tel Aviv. Weerarkaasi ayaa Tehran waxa ay ku sheegtay in bartilmaameedyo qaas ah ay markaa weerarka la beegsatay isla mar ahaantaana weerarka waxa uu ka dhignaa sida Tehran ay sheegtay argosi ka dhan ahaa safaaradeedii ku tiilay dalka Syria taasi oo horaan ay weerar ku qaadeen Israa'iiliyiinta ayagoona la sheegay in halkaasi saraakiil Iiraaniyiin halka lagu dilay. Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in Tehran ay joojiso weerarada isla mar ahaantaana waxa taa u dhagan nuglaaday Tehran halka Tehranna ay codsatay in wax argosya aysan ka imaan karin Israa'iil ayaa markale xergaha doonaysa inay goosato si ay uga falceliso weerarkii habeennimadii Sabtida ahaa lagu qaaday caasimadda Israa'iil ee Tel Aviv. Dunida ayaa ka warwarsan xaaladaha ka soo cusboonaaday bariga dhexe xilliga guud ahaan wadamada bariga dhexe ay qalalaase fara badan ku jiraan. Israa'iil ayaa muddooyinkii dambe waxa weerar aan kala go' lahayn ay ku haysay marinka Gaza ayadoona uu qorsheynayay ra'iisul wasaaraheeda Benjamin Netanyahu in uu weeraro kala ku qaado marinka Rafah taasi oo uu sheegay in iminka uu ka baaqsaday kadib markii Iran ay weerar ku qaaday Israa'iil. Haddaba falanqeeyaasha arrimaha siyaasadda ayaa waxa ay sheegayaan haddii Tehran iyo Israa'iil ay mar kale fooda isdaraan Mareykankana uu ka muujinayo warwar xoogan dunida ayaa waxa laga baqayaa in ay gasho dagaalkii saddexaad ee dunida ayadoona dhanka kale la sheegayo in Tehran ay ku goodisay haddii falcelin ay kaga timaado Israa'iil in Israa'iil ay ka tirtiri doonto qarinada bariga dhexe. Israa'iil qudheeda waxa ay sheegaysaa in Tehran taasi aysan marnaba marmarsiyo u noqon karin ayna dheg jalaq u siin doonin fariimaha ka imaanaya Washington ayadoona sheegtay in ay weerarkii Israa'iil lagu qaaday habeennimadii Sabtida ahaa ay ka jawaabi doonto. Dowladaha Khaliijka ayaa dhankooda warwar xoogan ka muujinaya arrintan walow dowladda Mareykanka ay saldhigyo ballaaran ku leedahay Khaliijka oo danaha Mareykanka lagu ilaaliyo. Mareykanka ayaa waxa uu baqanayaa in saldhigyadaasi weeraro markaasi ay ku qaadaan ciidamada Iiraaniyiinta kuwaasi oo sheegay haddii dagaalka ay qayb ka noqoto dowladda Washington ay markaasi bartilmaameed ay u yihiin saldhigyada ay ku leedahay bariga dhexe. daawade halkan haddaad soo gaartay waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalkeena fadlan haddaad nagu cusub tahay soo follow gare share gare muuqaalkan si meel fog u gaaro mahadsan.